بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiin baa mar kale meel kastoo aad daafaha dunida naga daawanaysaan kusoo dhawaada war wixii ina soo gaaray oo aad kala soconaysaan telefishinka caalamiga Somali Channel ee magaalada London Muqdisho Hargeysa Daborama Bura magaalada Garowe Nairobi Mandera Garissa Dadaab Abuhole Sweden Beledweyne Garowe Jidda Baydhabo Galgaduud magaalada Cape Town dalka Netherlands بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا لهانتين بمركلة ملكستو الدافع الدنيا نجد دعوانا إنسان كنا صور دواد ورك عالم كودين كجا إيمانا يلندن حرون تدحية تي في عالمي جاء الصومالي channel وركنا وحسوت شيء دين يعني جوا عبد الله حسين ماريا ورك آن دين هنا وح أقول دوران قدوميها برلمان كصوماليا أقول باقي مدنياش برلمان كيشعب كصوماليا إن أي تاجران نتيجوي كي كصوب حشركي وده تشجع دوان لغو سو gabagabeeyay magaalada Garowe iyo qaar kamid ah xisbiyada ama asxaabta siyaasadda Soomaaliya oo si weyn uga soo horjeestay qodobadii ka soo baxay shirka wada tashiga ee lagu soo gabagabeeyay ama dhawaan ku soo dhamaaday magaalada Garowe maamulka dekedda magaalada Muqdisho oo beeniyay in la musuqmaasuqay lacagaha ay ka qaadaan guddiga iskaashatada gaadiidleyda ee dekedda weyn ee magaalada Muqdisho munaasabad gargaar loogu ururinayay dadkii dhawaan ku cayrtoobay dabkii ka kacay suuqa Boosaaso ayaa lagu qabtay xaafadda dhacda galbeedka magaalada London ee la yiraahdo Wembley dhanka kalena wax garadkii siyaasiyiinta aqoon-yahanada dhalinyarada culimada iyo haweenka deegaanka Garaacad ayaa sheegay in ay ka mamnuuceen deegaankaas burcadbadeeda Soomaalida kadib markii ay qaadeen olole baahsan oo ay ku baacsadeen amaba kula dagaalameen burcadbadeeda madaxweyne ku-xigeenka Somaliland iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa iyana maanta gaaray magaalada Gabiley ee galbeedka Somaliland intaas waa warkii oo kooban haatan isagoo fidsan balse inta aanan u galin qodobadan iyo qaar kale oo xiiso leh qadar yar oo idha gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa ugu baaqay mudanayaasha baarlamaanka iyo shacabka Soomaaliyeed in ay taageeraan natiijooyinkii ka soo baxay shirkii wada tashiga ee magaalada Garowe nimca maxamed bashiir oo alaabo nooga soo waranta caasimadda wadanka Soomaaliya ee Muqdisho ayaa umurtan eegaysa gudoomiyaha xilkiisa lagu muransan yahay baarlamaanka Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan oo kamid ahaa madaxdii ka qayb gashay shirkii wada tashiga ahaa ee shalay lagu soo gabagabeeyay magaalada Garowe oo dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyay natiijadii shirkaasi iyo aragtidiisa ku aadan warmurtiyeedkii laga soo saaray shirkaasi wuxuuna gudoomiyuhu ka codsaday shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamkaba inay taageeraan qodobadii ka soo baxay shirkii shalay lagu soo gabagabeeyay magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal Shariif Xasan Sheekh Aadan oo ay dhanka kale saxaafaddu weydiisay ololaha ka dhanka ah ee mudanayaasha baarlamaanku ay ku doonayaan inay ku doortaan gudoon cusub oo baarlamaan ayaa tilmaamay in aan la haysan fursad xilligan wax lagu bedelo maadaama uu yiri ay muddo kooban u dhiman tahay xilligii lagu ballansanaa in la soo dhiso dawlad cusub oo ay yeelato ummadda Soomaaliyeed wuxuu gudoomiyuhu intaas ku daray in qof walba oo xildoona looga baahan yahay inuu isu soo sharaxo marka la gaaro xilliga doorashada madaxtinimada ee dalka Soomaaliya aad iyo aad ka mahadcelinayna soo dhaweynta walaalnimada leh aad iyo aad u mahadsantiin maxaad ilaahay iska leh anaga waxaan ku maqnay shirkii Garowe intii qaaran reer Puntland aad iyo aad inoo soo dhaweeyeen dawladda madaxweynaha shacabka runtii aad inoo soo dhaweeyay meeshaadana waxaa ka dhacay wada hadal oo looga daneynayo arrimaha Soomaaliya sidii dhibaatada looga bixi lahaa gargaarkan loogu gudbi lahaa dawladnimadii iyo qarannimadii iyo sharaftii loo heli lahaa Soomaaliya isu raaci lahayd runtii wada hadalka ka dhacay aad u fiicnaa inkastoo arrimo badan oo la isku qabtay jireen ayagoo aad iyo aad u mahadsan arrimihii la isku qabtayna walaalaheen reer Puntland ayagaa arrinta aydan noogu tanaasulay ra'yigii anaga aan wadanayna nala qaateen waxaan mahadcelinaynaa shacabka iyo dawladda iyo madaxweynaha iyo wasiirada iyo dhammaantoodba waxaan rajaynayaa ummadda Soomaaliyeedna meel kastoo ay joogto inay nala qaataan gaar ahaan waxaan ka codsanahay dhibaanada Soomaaliyeed wax kasta bilow ay leeyihiin dhammaadayna leeyihiin waqti badan ay dhibaano la soo ahaa waxaan rajaynaynaa inay haddana nala qaataan shalay odayaashii keenay iyo qabiilkii in lagu celiyaa laga badin waayey inay haddana nala qaataan
ayagoo ka doonanayo odayaashoodii iyo waxgaradkoodii iyo civil society-doodii iyo ahalkoodii ayagoo dib mar labaad inay soo doontaan oo u rajeynayo kiiskaas xildhibaanada Soomaaliyeed aad iyo aad ugu codsanayna inay nala qaataan shacabka Soomaaliyeed inay nala qaataan oo codsanayna caalamka oo codsanayna inay nala qaataan aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan rajeynaynaa in ay tahay fursad ummadda Soomaaliyeed u jirto waa jeclaan lahayn markii horena waa lagu talagalay inuu muddo jiraayo xildhibaanka in la doortaan qofkii codkii lagu soo doorto way suuroogaysa arrimo jira dartood waxaan rajeynaynaa waqtigan hadda la soo cayimay wixii uun la xulo ama la soo selection gareeyo ama si kasta la yidhaahdee in waqtiga dambe loo gudbo in qof walba uusan tuugaysa aamino waa dhibasatiisa taasoo dhan la weydiiyo anigu ma fiicnayn laakiin anigu waxaan isleeyahay hadda waqti guddoomiyaha loo sameeyo maba lahee dadka kale oo soo dooran doonaan guddoomiye u sameyno ninkii guddoomiyenimada halkaas inuu soo shaqaayo la nimca maxamed Soomaali Journal Muqdisho dhanka kalena qaar ka mid ah asxaabta siyaasadeed ee iyagu amaba ka dhisan amaba xisbiyada gaarka ah ee ka jira magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegeen inay si culus uga soo horjeedaan idilahaan natiijooyinkii ka soo baxay shirka wada tashiga ee magaalada Garowe ku soo dhamaaday dhawaan waa kan wariye Cabdirasaaq Jaamac Cilmi Black oo umurtaas qaada dhigaya xisbiga dadka oo kamid ah asxaabta siyaasadeed ee dhawaan lagu dhawaaqay ayaa waxa uu si weyn uga soo horjeestay qodobadii lagu heshiiyay ee ka soo baxay shirkii wada tashiga ee wajigiisa labaad uu ku soo gabagaboobay magaalada Garowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland gudoomiyaha xisbiga dadka Professor Siciid Ciise Maxamuud oo isaga iyo wafdi hogaaminaya ay soo gaareen magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ka soo horjeestay shirka wada tashiga ee lagu soo gabagabeeyay magaalada Garowe ka uu sheegay inay si weyn u dhaliilsan yihiin qodobadii ka soo baxay shirka wada tashiga ee lagu qabtay magaaladani Garowe kaasi oo uu sheegay in qodobada ka soo baxay ay kamid ahayd in wax lagu qaybsado 4.5 ay taa wax caqabad ku ah ummadda Soomaaliyeed xaaladda maanta wadanka uu marayo waa la socotaan wadankii maanta gacan Soomaaliyeed kuma jiro wuxuu ku jira maanta gacan shisheeye ku jira iyo dad yar oo kooban gacanteeda ku jira shirka ugu dambeysay oo Garowe waad arkaysaan oo maanta waxa lagu soo noqday 4.5 lagu soo noqday kaasoo ah rajabeen ma ahan wax rajac sababtoo ah waxa way 4.5 wuxuu ku saleysan yahay qabiil dawladnimada qabiil kuma socoto waan ogsoonahay intii la soo jiray hada in wax walba la isku dayay dawladnimada loogu dhiso hab maartay beela way shaqeeysay hab madhab way shaqeeysay hab qab way shaqeeysay hab cadnimo way shaqeeysay waxa kaliya ee aayaha leh ee maanta lagu dhisi kara dawlad waxa waaye in ummadda Soomaaliyeed ay inta wadaagaan aragtideeda midayaan itijaahsaas ay yeeshaan markaas tabacadna ay maartay waxa la yiraahdo qaab xisbi ku gaaran midnimada ku gaaran xisbiga naga waa xisbiga dadka waa xisbi midnimo waxaanu jecelnahay ummadda midnimadan doonayna waa xisbi nabad ma doonayno xalka in laga raadiyo xoog hadalkani ayaa waxa uu qayb ka yahay aragtiyo kala duwan oo shacabka Soomaaliyeed ka muujinayaan qodobadii ka soo baxay shirkii ku soo gabagaboobay magaalada Garowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland Cabdirasaaq Jaamac Cilmi Black Soomaali Channel Muqdisho maamulka dekada weyn ee magaalada Muqdisho ayaa iyana beeniyay in la musuqmaasuqay lacagaha ay ka qaadaan guddiga iskaashatada gaadiidleyga ee dekada weyn ee magaalada Muqdisho mar kale wariye Nimca Maxamed Bashiir ayaa umurtan eegaysa maareeyo ku-xigeenka dekada Muqdisho Axmed Cabdi Kaariye oo warbaahinta kula hadlay kaamka badbaado ee degmada Dharkeeley xilli uu raashin quraaca u qaybinayay qoysaska ku sugan kaamkaasi ayaa beeniyay warar sheegayay in maamulka dekada Muqdisho ay lunsadeen lacago loogu talagalay qoysaska barakacayaasha oo laga aruuriyo iskaashatada gaadiidleyda gobolka Banaadir isagoona maareeyo ku-xigeenku sharaxaad ka bixiyay qaabka maamulka dekada Muqdisho ay uga qayb qaataan quudinta dadka barakacayaasha ee ku sugan kaamamka ku yaala magaalada Muqdisho bismillah di aan warbixin kaamka badbaado aan ka bilowno arinteena meeshaan waxaa dhacay barakacii iyo dhibaatadii ka dhalatay abaarihii ku dhiftay waddanka Soomaaliya markii barakacii iyo mushkiladii ballaarneed ee dhacday dadkaas ay ku dhifatay ay soo gaareen gobolka Banaadir maamulka dekadu waxay qayb ka noqdeen gurmadkii dadka loo sameeyay waxaan qorsheynay 3 bilood gurmadkood ayaan ku talagalnay markii hore oo
أنا سلحين وصدق البلاد أو هذا جاتهم كان سأقوم وقتي أي أدوات كالحالة صدق البلاد وقبل على يسين جولاي وكو أكيد سبتمبر مركي عن قمة سبتمبر كو أكيد مركي عن قمة كاسواسة مايني إذا اعتدينا أي ولي بحل لها وأي سيدي وشفت عمر لبعض عطس النصو قدبيي أقدم مارينتا مسيبوي وارينتا عاد إيضا دقعانت وهي سيكون هولانات إنا نصدح بلاد أخرى أنخدرنا وقود مكي صدح بلاد أنقرشي هراء أنخدر قلني صدح كان أنخدرنا dhanka kale qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka Muqdisho oo xafiis nabadeed ka furtay magaalada Muqdisho ayaa soo dhaweeyay go'aanadii ka soo baxay shirkii wadatashiga ahaa ee lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho Abdullaahi Saalax oo ka mid ah odayaashii ka qayb galay munaasabadii lagu furayay xafiiskan cusub ee nabadda ayaa tilmaamay in waxgaradka Muqdisho ay soo dhaweynayaan go'aan walba oo xal u noqon kara ummadda Soomaaliyeed oo uu sheegay inay ka daaleen dhibaato iyo dagaal aan dhamaad lahayn oo sanooyinkii ugu dambeeyay si isdaba joog uga dhacay gudaha magaalada Muqdisho maanta oo halkaan aan joogno waxaan isugu nimid saddex qodobka koowaad waa iftitaaxii ama furitaankii xafiiskan qodobka labaad isku xirka gudaha iyo dibadda ee meeshaan qodobka saddexaad shirkii wadatashiga ee ka dhacay magaalada Garowe isugu tageen siyaasiyiinta Soomaaliyeed munaasabad gargaar loogu ururinayay dadkii dhawaan ku cayrtoobay dabkii baanaa ee sida xun u baabi'iyay suuqi weynaa ee ku yiil bartamaha magaalada Boosaaso ayaa lagu qabtay galbeedka magaalada London ee degmada loo yaqaan Wembley waa kan Umar Sheekh Aadan oo ka tirsan TV-gan caalamigaas ee Somali Channel oo goobjoog ka ahaa munaasabad gargaar loogu ururinayay dadkii ku cayroobay dabkii ka kacay suuqa magaalada Boosaaso ayaa lagu qabtay London munaasabadiina waxay u dhacday sidan odayaasha ugu horeeya barnaamijka kaliya ee dadka qeyloow iyo idinka oo runtii haweeneyda rag isugu jira runtii caawa barnaamijkayga wuxuu ahaa bal inaanu isu nimaano oo aan tusno dareenkeena la wadaagno dadkii runtii ku hanti waayey suuqii weyna Puntland ahna suuqa labaad ee ugu weyn barnaamijkan sida Abuukar u sheegay danta laga leeyahay waa in insha Allah la fuliyo dardaarka Allah u naxariistay Sheekh Ahmed Xaaji Cabdiraxmaan oo nagala dardaarmay macnaha inaan runtii isugu dardaarano dhibaatada dadkeena ku dhacday Boosaaso jooga ama meel walba Soomaaliya jooga dhibaatada ay ka dhacday iyo kuma ekaanayso waxaa loo baahan yahay in waddankeena laga qabto wax dadka dhan u dhaxeeya oo ninna uusan gooni u yeelin sida keliya ee dadkeena wax ugu tari karno waxa weeye dadkeena dhibaato badan baa ka dhacday hadda dhibaatadii waddanka ugu dambeysay majaacada oo ilaahay nasiibkiisii inaan ka qayb qaato wax un dadka isu dayay wax taraan majaacadii waa laga baxay berita ka maalin haddana mid kala soo noqon karta laakiin waxaa fiican qofkii kalluun ku siiyo waxaa ka fiican qofkii sida loo jilaabto ku baro waxaa aad iyo aad muhiim u ahaan lahayd aad iyo aad u fiicnaan lahayd in inaynan ku mashquulin cilladda laakiin wixii keena aan ku mashquulin waxaan hadda rabaa insha Allah inaan runtii mikrofoonka ku wareejiyo Saadiq Eeno saasaa marka la doonayaa qof wax la baray wax ma keeno laakiin qof wax la tilmaamay oo og in la tilmaamay waa nolosha ku soo kordhiya dhibkaa haddaba ku dhacay dadkeenaas Soomaaliya oo dhan dhib baa haysta shaki la'aan dhibkana meel kale inoogama imaane annaga lugaheena iyo gacmaheena ku doonano ilaa aan garan weyno war dhibkan yaa u sabab annagaa markaa isku tuurtuura hebel weeye hebel gobolkaas way gobolkaa wey ree hebel wey ree hebel ururkaa xisbigaa wey munaasabadan caawa waxaan jeclaan lahay inaan ku wada dhannahay Soomaaliya oo dhan khaasatan inay u dhow yihiin ummadda reer Puntland aan caawa aysan ku kala maqnayn
aad iyo aad baan uga xunahay holka intaan leen caawinta la qabtay in intaana qof aan ku joogno sideedana dhib ma laha oo maaragtay 5 qof oo nadiif ah haddii la helo oo isku niyada oo isku gacan wax walbay hirgelin karaan runtiina maalmahan waa la ilaalinayay in maaragtay telefishinka lagu qoray internetyada la soo geliyey caawa maanaan filayn waxaan islahayn talo Soomaali oo dhan yaa iskugu iman doonta banaanka la dhooban doonaa waxba se ma aha waa dhacday insha Allah mar dambe si dhici dooni qof kasta oo maanta meesha jooga mas'uuliyad culus baa ka saaran deriskiisa Soomaali arrintan waa wada dhan tahay waxaan meeshaan iskugu nimid suuqii Boosaaso gubashadiisii oo aan aad iyo aad uga xanuunsanay meeshaan caawa waxaan iskugu nimid maaragtay arrinta waracaada iyo dad waaliheena oo maaragtay dhibaato ku dhacday inaynu la qaybsano oo dareenkeena aynu tusno iyo sidaynu diyaar ugu nahay oo ugu helan nahay inaynu hiil iyo hoob la garab istaagno waxay ila tahay waxay iskugu nimid dhibaatadii ka dhacday suuqa Boosaaso laakiin ma ahan inaan isku soo orodno markii dib uu dhaco waxaan dareemayaa aad inuu u daadsan yahay u kala daadsan yahay xiriirka ama iska warqabka ama wadatashiga shacbigeena runtii qof walba waxaad moodaa marka uuna soo waco waxaad moodaa dareen gaar u xambaarsanaa marka uu lacagta bixiyana waxaad yani waxyaabaha igu cajiibsanaan marna ilaawan ay isaga midka ahay waxaa ka mid ah inuu u ducaynayay dadkii runtii ku dhibaatoobay ama ku cayntoobay musiibadii Boosaaso ka dhacday la taliyaha arrimaha qurba joogta prime ministerka Soomaaliya Abdulqaadir Taragerees oo sidoo runtii ah shakhsi ummadda Soomaaliyeed u khidmeeya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ركوا والسلام يا لك قولها لا وجه السلام يا يصدح جاه. كنتي أنا برايم سكان الله شقيا لكن هذا ما مدى هذا الشيء برايم مستر كو هذا بيصير وحش عليه كنتي نشكان كسوق بشو ما كان الشيء وأنا الشيء بعد عيا waxay ugu tiri xataa haday suurtagal tahay waa u joogayaa maalin baan joogayaa si aan shirkaan uga qayb galo oo runtii qaybteeda ay uga qaadato laakiin si roadmapkii u socotay darteed bay xagga ugu gudubtay marka fartiintaan iga gaarsiiyey tiri marka inaan fartiintaan iga soo gudbiyaan jecelahay waa mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullah جزاكم الله خيرا وكاسو ahaa la taliyaha prime ministerka arrimaha diasporada aad u mahadsan yahay waxaad moodaa dadkii la filayay horta gabdhuhu aad bay u mahadsan yihiin maritanks gabdhaha sidii wax loo sheegay looma iman markiinu reality ka dadku waa dad yar anugu hadda meel baan ka imid dad aad u fara badan baa jooga waxaa kaliya aanu imidna ma ahan microphone inaan qaato anaaba ku gaaray hadda waa inaan nastaaba galo ee macnaheedu waxaa weeye 10 inaan baxsho oo contributionka hadday 20 noqotay hadday 10 noqotay bal hawshaas laga qabanayo Boosaaso oo dadkaas masaakiinta oo baaba ah iyo dhibta la kulmay wixii aan ka qayb qaadan karin aan ka qayb qaadan waxaad sababtaa gabdho kaalintooda waa qaateen laakiin raggii waxaad moodaa inay ka maqan yihiin iyadoo runtu ay tahay wax loo dul qaadan karana aysan ahayn oo ilaa 100 baabuuro oo dabka joojiya ayaa samayn kara laakiin waxaan ma ahayn habeen soo noqdo inuu qabto marka intaas ka baxaya dhalinyarada dalka Soomaaliya forum way taageerayaan runtii dee gobonimada taasay ka waqasatay Boosaaso dadkii gaaray qaarkood Soomaaliya lagu gaarsiiyey waxaa ka mid ah dadka gudooda maadaama dadkaas ay wax gaareen waxaan ku saxayaa in Soomaaliya ay wax gaareen dad bulsho ka yimid baydan ka yimid dad mid kale ka yimid marka shir kelima ah ee Boosaaso iyo Puntland Soomaaliya lagu arrintan halkii aan oran jiray raggii waa saqaysan yahay sifiin looga ila qofsuuleeyaa ma jiro xilbaa isma saarayaan wadaaxibay siman yihiin munaafaqaday subkaan sawir beeray ku hadlayaan cidlay saymaynayaan waxay saaminayaan sagaara ka cabi karin
haweenkii waa sadaro sumcaddooda weyn ciyaalkii bay sidaan sabiilkay korinayaan waayeelkay waxsiinayaan ilaahay ma u sakiray tirada boqolkee la sugo 9 waxaa ku jira sax hawshooda u wado ilaahay u taatirow abaalmarintooda sii halka warkaasi idinkaga imanaya waa London xarunta dhexe ee TV-ga caalamiga ah ee Somali Channel waxgaradka iyo siyaasiyiinta aqoon-yahanada dhalinyarada iyo culimada haweenka deegaanka Garacad ee gobolka Mudug ayaa sheegay inay mamnuuceen burcadbadeeda Soomaalida iyagu sida ba'an u afduubta amaba u qafaasho maraakiibta maraya geeska Afrika iyagoo ololo culus ku qaaday burcadbadeeda Soomaalida sidii ay uga sifayn lahaayeen idilihaan deegaanka Garacad waa kan wariye Axmed Maxamed Cilmi Caanageel oo umurtaas eegaya deegaanka Garacad oo hoostaga degmada Jariban ee gobolka Mudug ayaa bilihii u dambeeyay waxaa ka socday shirar iyo wada tashiyo aad u ballaaran oo ay yeelanayaan bulshada deegaankaasi Garacad kuwaas oo ka tashanaya habka ay ku wajihi lahaayeen joojinta burcadbadeeda deegaankaasi Garacad oo ay sanadihii dambe hoy iyo gabaad ka dhigteen kooxaha burcadbadeeda Soomaalida iyo sidii deegaankaasi oo dhan uu noqon lahaa meel nabadgelyo ah oo aysan ka jirin burcadbadeednimo iyo amni xumo kale Garacadna ay noqon lahayd meel amni ah oo cid walba oo doonaysa inay wax u qabato timaado si nabadgelyo shirkaasi iyo watashiyadaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay guddi isugu jira odayaal aqoon-yahano dhalinyaro culimo diin hooyooyin iyo ganacsato iyo dhalinyaro isaga baxday burcadbadeednimada oo deegaankaasi ka soo jeeda waxaana markii kulamadaas ay dhamaadeen la qabtay kulan weyn loogu talagalay in dadka reer Garacad iyo waliba dhammaan dadweynaha reer Puntland ay fariin u diraan dadka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka si loogu sheego in la soo gabagabeeyay hawlihii burcadbadeednimo waxaa kulankaasi soo qaban qaabiyay guddi hore u qabtay kulamadii dhamaaday iyadoo kulankaasina ay ka soo qayb galeen dhammaan bulshada reer Garacad oo ay hormuud u yihiin siyaasiyiin odayaal dhalinyaro ganacsato iyo hooyooyinka reer Garacad furitaankii kulankaasi kadib ayaa waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha degmada Jariban Cabdikariin Kayton oo ku dheeraaday waxqabadka maamulkiisa iyo sida ay uga go'an tahay bulshada reer Jariban la dagaalanka burcadbadeeda iyo in ay hormariyaan deegaanka dhanka caafimaadka iyo waxbarashada maamulkan aan madaxdu ahay oo degmada Jariban wuxuu jiray hal sano iyo 3 bilood buu jiray wuxuu ahaa maamul aan waxba loo dhiibin buu ahaa waxa adduunka dhacana ma aha maamul aan waxba loo dhiibin oo aan meel ku tiirsanayn waxaan soo xisaaray meel aan waxba ool inaan wax ka qabano waana la dadaalay waxaan wax ku qabanaynay waxay ahayd hantidayada bay ahayd iyo gaadiidkayga shakhsi ahaaneed waxaan qabanay marka waxaanu la kaashanaynay ummadda maxaa yeelay waxna loo dhiibay waxa ku qabto mardaysan jirin waa in ummadii iyo maamulka ay iska kaashadaan wacyigelin iyo la sameeyo iyo dhiirigelin si loo gaaro horumar waxyaalihii la qabtay marka la isla qabtay waxaa ka mid ahaa 2 station oo laga dhisay Jariban iyo Garacad waxaa ka mid ahaa wadada hadda socoto oo meel la yiraahdo Balag iyo Jariban isku xirta oo wadada la yiraahdo wadada Boosaaso iyo Jariban isku xirta waxaa ka mid ah inaanu degmada oo awal ahayd degmo qof cid walba aan guriyeynayso maamul kasta maamul goboleed kasta aan guriyeynayo gobol kasta aan guriyeynayo inaanu xadaynay waxa la yiraahdo xuduudaheeda oo aanu ka dhaadhicinay dadka u xil saaran sida United Nationka inay degmadaas xuduudahaas leedahay oo aan lagu xadgudbi karin oo horsi ay yeesho horumarinteeda maxamuud jaamac diirshe faray oo kamid ah odayaasha deegaanka Garacad ayaa isna ka hadlay shirkan waxaana uu sheegay inay soo dhaweynayaan sabab jaridda burcadbadeeda waxaana baaqo u diray dhammaan hay'adaha ka howlgala Soomaaliya halkan shirka inta socday aan soo sheegay waxaa looga hadlayaa dhowr qodob oo koow ay ka tahay arrinta burcadbadeed runtii deegaamada ay ka jirto ayuu ka mid ahaa deegaanka Garacad ma dhihi karo kama ay jirin waxaan ku guuleysanay markii degmada dadka deegaanka culimada asxaabul aqliga dhalinyarada iyo raggii burcad ahaa laftigooda markaanu iskaashi samaynay waxaanu ku guuleysanay inaanu soo afjaro burcadbadeed degmada Jariban
arrintaa intayadaasi waxaanu isla qaadanay inaan saacaddaa laga bilaabo oo maanta laga bilaabo inaan degmada Jariiban xeebteeda Garacad oo 160 kiiloomitir ku xusan waxa burcadbadeed ah hawsheeda aan laga fulin karin waxaana inaan ka dhoofi karin burcadbadeed waxaana aysan imaan karin maanta laga bilaabo sidaas alligeed waxaanu adduunka u sheegaynaa Puntland u sheegaynaa Soomaali dawladda dhexe ee Soomaaliya u sheegaynaa hay'adaha caalamiga u sheegaynaa maanta laga bilaabo inaanu damaanad buuxda aanu ka bixin karo 165 kiiloomitir inaan burcadbadeed damaysa ka jirin ee degmada Jariiban sidaas alligeed waxaanu samaynay ciidamo boolis ah oo ilaaliya oo la kaashanaya deegaanka waxgaradka dayaal la shaqeeya ciidamada oo guddi ah waxaan samayn bara control oo laga ilaaliyo runtii degmada tani ma ahayn magac ahaan dad Puntland baanu nahay Puntland dalka iyo dadka la yiraahdaa laakiin maamulka Puntland degmada tani mid ka shaqeeya ma ahayn runtii ma soo gaarin kamana shaqeyn ma ahan inaan cid caweyn haya laakiin xaqiiqda jirta inaanu indhaha ka qarsanno ma ahan madaxweyne Faroole xalada idaacada wuxuu ka sii daayay in burcadbadeed ay ku hadhay degmada Jariiban oo kaliya xeebta Garacad anagu ma dhahayno haatan ma dhahayno meel hebliya joogtaa laakiin warkaas waxaan isleenahay runtii waa mid xaqiiqda ka fog baanu isleenahay oo sida hadda loo dhigay madaxweyne u dhigay ma ahan kudanteeda anagu waxaanu soo dawladda aanu ka codsanaynaa annagoo cadaynayna inay ka gaabsatay waxqabadkii degmada tan ay ahayd oo cod iyo calaf iyo ciidan midna aysan ka geysan waxaanu hadda mar labaad ka codsanaynaa kaalintii dawladda laga lahayd oo dawladdu ay ku lahayd inay kaalinteedii tii hore u dhaaftay iyo tan haddaaba soo buuxiso haddii dawladdu ay kaalinteeda ay buuxin weydo waxa weeye dadku soo hadda u tashaday ayuu u tashan doonaa gudoomiye hore degmada Jariiban Cabdicasiis aw Yuusuf Xaarin haatana afayeenka shirka ayaa akhriyay qodobadii ka soo baxay shirweynihii ku soo idlaaday deegaanka Garacad ee hoostaga degmada Jariiban waxaan horta marka hore soo dhaweynaynaa waan ayidaynaa shirka Garoowe lagu qabtay oo macnaheedu uu yahay Garoowe shirka in lagu qabto Soomaaliya uu marti geliyo in ay macno weyn noogu fadhido waayo annagu waxaan nahay Puntland dadkii dhisay baanu nahay midda labaad waxaan rabaa in aan sheego qoraalka aniga la ii dhiibay oo aan hayo oo shirku soo go'aansaday qodobadiisa dhowr qodob oo ka mid ah baan rabaa in yar inaan faahfaahiyo waxaa ka mid ah qodob ay ku baaqayso deegaankan uu ku baaqayo degmada Jariiban dadka degan beelo badan baa degan beelaha deganna inay isugu yimaadaan shir bay ku baaqayaan oo waxay leeyihiin degmada aanu ka tashanno aayaheeda sidii la yeeli lahaa waxaana ku qoran qoraalkaas Puntland maadaama sidii la rabay ama aan ka filaynay wixii deegaankan ka rabay ayaan u qaban aynu tashanno oo isu nimaadna baa ku qoran marka baaqaasna waxaan rabnaa in saxaafadda iyo dadkaaniba gudbiyo deegaankaani ay beelaha kale ka warsugahayaan diyaarna ay u yihiin meeshii loo baahdo shirkaa ku habboon lagu qabto aayaha degmadana looga tashado dhanka kale ciidamada amniga ee deegaanka Garacad ayaa soo afmeeray howlgallo ay kula dagaalamayeen kooxaha burcadbadeed oo isku dayay in ay ka duulan tagaan deegaanka Garacad iyo deegaano kale oo hoostaga degmada Jariiban ee gobolka Mudug taliye Axmed Cismaan Cali oo ah taliyaha ciidanka la dagaalanka burcadbadeeda ee deegaanka Garacad ayaa ka warbixiyay howlgalkan waxyaabihii ay ku soo qabteen iyo halka ay ka fuliyeen waxaan u jeedinaynaa dhammaan arrimaha burcadbadeeda dadka lagu eedayo waxa gaadiid aad arkaysaan iyaga ka soo qabanay qalabyadii aanu idin soo tusayno doonihii iyo wixii aanu soo jiidaynay maxaabiis aad u fara badanna way xaraysan tahay oo aanu ka soo qabanay hadda waanu ka soo gudubnay waajibiyadii shaqooyinkii aanu meelaha u aadnay waxaanu ku soo noqonnay rugtii saldhigga
howlgalkan oo socday muddo asbuuca ayaa waxaa laga fuliyey 165 kilomitir oo ah xeebta hoostagta degmada Jariban ee gobolka Mudug waxaana lagu soo qabtay kooxo burcadbadeed ah oo doonayay in ay weeraraan maraakiibta ganacsiga ee goosha marinbiyoodka caalamiga ee Soomaaliya u dhow. أحمد محمد علي عانقل شرهير سراء وكي صدحاد ومام القبولات كأزانية جاليدها كسو تشيدا ايكو قبتين مقالة لندن ايا وحا كقيب قلي عبد الله يفرنا وكتر سن تي في عالمي الصومالي channel waxaa magaalada London lagu qabtay shirkii saddexaad ee jaaliyada maamul goboleedka Azania laguna taageerayay maamul goboleedkaasi waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay shirka xogayaha dhaqaalaha qurba joogta أزانيا وعمر غالديد فليتفضل عمر مدن يال يا مرويين waxaa sharaf weyn noo ah inaad nagala soo qayb gashaan xafladan ay dhigayaan golaha qurba joogta Jubbooyinka laguna taageerayo dowlad goboleedka Azania golaha qurba joogta Jubbooyinka Azania waxaa la aasaasay 25 December 2009 waxaana lagu aasaasay magaalada London waxaa aasaasay xubno ka soo jeeda gobolada Jubbooyinka Azania waxayna ahayd xubno ay ka go'an tahay in ay wax ka qabtaan deegaanadooda ururkani wuxuu udub dhaxaad u yahay abaabulka loogu jiro dhismaha dowlad goboleedka Azania isagoo mar walba mas'uuliyiinta la garab taagan taakuleen dhaqaale talooyin wax ku ool ah fidinta mabaadi'da hirgelinta dowlad goboleedka ururinta dhalinyarada iyo xubnaha micnaha leh ee dadweynaha fahamka wanaagsan ee gobolada Azania dhamaantood 10 sano u dambeysay intii dowladii ayna burburin dhexe waxaan xoogaal u ahay laga soo bilaabo 74 ilaa iyo inta laga burburahayay 3-4 gobol baa taksiga dawladda ka soo gali jiray kan ugu badan wuxuu ahaa Jubbada Hoose shabeellaha dhexe shabeellaha hoose shabeellaha dhexe bay iyo waxay ahaayeen muxuu ahaa xamar inta kale waxba kuma soo gali jirin dawladdii muxuu ahaa kacaanka waa dhab weeyaan taas waxa weeye marka ummadda gobolka degan dulmi badan baa ku dhacay dhibaato aan la tirin karin baa ku dhacday culays badan baa soo gaadhay qofka bani aadamka waxa weeye qof madluuma oo daciifa oo lagu joogsaday hadda ilaahay baa yuu hoos taagan yahay sidoo kale waxaa qadka taleefanka kaga qayb galay madaxweyne maamul goboleedka Azania Professor Maxamed Cabdi Gandhi in la taageero shacbigaas baaba'san ee colaadda ku habsatay ayaanu ka dalbanaynaa haddaanu nahay shacbigii iyo deegaankii deegaanada Azania qof kastoo meesha ka soo qayb galana aad u faraxsanahay waana ku faraxsanahay ummadda Soomaaliyeedna waxaan rajaynayaa inaan u horseedi doono guul iyo barwaaqo waxaan isleeyahay Soomaaliya ha israacdo nabad bayna noqon doonaa Azaniana waa taageersanahay 100% marka aniga shakhsi ahaan shirkan aad bii loo qurux badan yahay waxaana leeyahay mar walba jaaliyadaha inay soo yimaadaan oo ay ka tashtaan aayahooda sidii wadankoodii hooyo dib loogu dhisi lahaa shirkan Azania waxaan u arkaa shir wanaagsan Soomaaliya oo dhan ay u idishahay waxaan doonaynaa on mataqaanaa aan maalkeena iyo xoolaheena iyo nafteenaba aan u horeynaa Jubbooyinka dadka ka soo jeeda hadaanu nahay Cabdullaahi Yaafarna TV-ga caalamiga Somali Channel London halkani waa London xarunta dhexe ee TV-ga caalamiga ee Somali Channel ciidamada nabadgelyada wadooyinka ee loo yaqaan trafikada ayaa waxa ay saaka howlgal ka sameeyeen bartamaha magaalada
caasimada gobolka hiiraan ee beledweyne waa kan wariye cusmaan aadan carays oo isaguna umuurtaas goobjoog ka ahaa. ciidamada nabadgelyada wadooyinka ayaa saakayto lagu arkay wadada laamiga ee dhex marta magaalada beledweyne iyadoo ciidamo sita dareyska cagaaran ay gaadiidka kala hagayeen qaabka ay gaadiidka isaga kala gudbayaan wadada laamiga. arrinkan ayaa ka dambeysay kadib markii maalmihii ayna ka soo gudubnay ay dhaceen shilal kala duwan oo sababay dhaawacyo soo gaara dadka rayidka iyo carruurta sida uu TV-ga caalamiga Soomaali Channel ugu waramay holow isaga ah sargaal ka tirsan ciidamada nabadgelyada wadooyinka xarakada al-shabaab al-mujaahidiin ee gobolka Hiiraan. holow ayaa isaga sheegay sababta keentay xilligani in ciidamada nabadgelyada ay ka howlgalaan isgoyska ugu weyn ee kala qaybiya xaafadaha kala duwan ee magaalada beledweyne. inay u howlgasho sidii ciidanka nabadgelyada wadooyinka waxaan ku qasbay shilalkii ku batay magaalada oo aridaas ku dhacayso dadkii jiirayaan mataqaanaa xarakada shabaab mujaahidiin markay aragtay arrimahaas dhacayo ayay waxay samaysay ciidamada shurta kabacdi inay ka howlgalaan magaalada beledweyne kabacdina mataqaanaa sidaas ay ku dhashay inuu cuslaaday gawaaridii oo mataqaanaa xawli loo wado si dheerayso markaasna dadkii shilalkii saas u bateen midna amar lagu soo rogay gawaarida in si tartiiba loo wado magaalada dhexdeeda ayaa mataqaanaa ku soo rogay awaamiirtaas. qaar ka tirsan wadayaasha gaadiidka waaweyn iyo kuwa yaryar ee ka shaqeeya dhinaca gobolada Puntland iyo gudaha magaalada beledweyne ayaa soo dhaweeyay ciidamada nabadgelyada wadooyinka oo saakayto si weyn loogu arkayay iyagoo kala hagaya gaadiidka. arrinkan ayaa u muuqanaysa mid wax badan ka tarta shilalka kala duwan ee ka dhaca gaadiidka dhexdooda iyo shilalka ay geysanayaan gaadiidka una geystaan shacabka dhex lugaynaya wadada laamiga. bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne ayaa aad ugu riyaaqay markii ay saakay arkeen ciidamo u taagan qaabka ay gaadiidka isaga kala gudbayaan. arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli maalmihii ugu dambeeyay soo badanayeen shilalka sida ay xaqiijiyeen ciidanka nabadgelyada wadooyinka iyaga saakati lagu arkayay iyagoo ka howlgalaya gudaha magaalada beledweyne xarunta gobolka Hiiraan. mas-uuliyiinta ayaa waxay ii sheegeen si arrimahaasi u yaraadaan in ciidamada ay soo rogeen amarro ku aadan in gaadiidka ay si miira ay u dhex socdaan gudaha magaalada beledweyne xarunta gobolka Hiiraan. Ismaan Aadan Carays, TV-ga caalamiga Soomaali Channel. jaaliyada Sool ee wadanka UK ayaa kaalmo gaarsiiyay qoys dhibanaha oo ku nool magaalada Laascaana kadib markii TV-gan caalamiga ee Soomaali Channel uu baahiyay dhibaatada qoyskaas dhibanaha ama tabaalaysan ee iyagu ku sugan caasimada gobolka Sool ee magaalada Laascaano. waa kan wariye Maxamed Cismaan Cabdinuur Xaashi oo umurtaas ka faalloonaya. iyadoo ay dhowaanahanba soo badanayeen kaalmooyinka gargaarka bini'aadantinimo ee lala garab taagan yahay qoys danyar oo dhowaantan telefishinkan caalamiga Soomaali Channel laga baahiyay kaasi oo xaaladooda nololeed ay ahayd mid aad u liidata. intaas wixii ka dambeeyay qurba joogta u dhalatay dalka Soomaaliya gaar ahaan gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn ayaa waxa ay isku hawlayeen sidii ay u caawin lahaayeen qoyskan tabaalaysan iyadoo maantana ay qurba joogta u dhalatay gobolkan Sool ee ku sugan dalka Ingiriiska gaar ahaan magaalada Bristol ayaa waxa ay deeq soo gaarsiiyeen qoyskan lacagtaasi oo gaaraysa $650 Mareykanka. waxaana deeqdan soo diray Caasha Nuur Shafay oo ah haweeney iyadu isla markaasna ku sugan dalka Ingiriiska, Khadra Askar Xuseen, Hodan Geela Cilmi, Dahabo Cawil Cismaan iyo Isir Xasan Saadle oo dhammaantood ka mid ah jaaliyada Bristol ee u dhalatay gobolkan Sool, kuwaasi oo kaalmadan lacageed soo gaarsiiyay qoyskan xaaladda nololeed ee adag ku jiray iyadoo markaasna ay u soo wakiisheen qaar ka mid ah haweenweynaha deegaanada SSC ee ku sugan xarunta gobolka Sool ee Laascaanood. iyadoo markaasna ay qoyskan tabaalaysan ay aad u soo dhaweeyeen deeqdan isla markaasna qurba joogta SSC ay aad ugu mahad celiyeen. halkan waxaanu ku wadnaa deeq ay soo fidiyeen gabdhaha dalka Ingiriiska gaar ahaan Bristol. gabdhahaas oo ah gabdho u dhashay gobolka Sool arkayna kana argagaxay markii ay arkeen dhibaatooyinka haysta qoyskan aan maanta la joogno
oo ay mas'uuliyad ka tahay nadiifa macalin cabdi qoyskaas oo ay arkeen markay arkeen islaantii u shaqayn jirtay oo dhabarka ka jaban iyo laba qof oo waalwaalan oo ay hayso sida laajliga gabdhahaas waxay isku soo xilqaameen inay u soo diraan deeq dhan $650 Mareykanka ah 650 kaas oo ay soo direen caasho nuur shafay islaan weeye weyn islaantaas iyada lacagta badankeeda soo ururisay insha Allah bidilaahi karim halkan waanu uga duceynaynaa dhamaantayo iyaguna way u duceynayaan waxa kale oo ku xigta khadra askar xuseen hodan geelle cilmi dahabo cali cismaan isir xasan saadle dhammaantood hablahaas oo ka soo ururiyay gobolkoodaas ilaahay waan u duceynaynaa gabdhaha maanta soo diray kuwa shalay soo diray kuwa ayaan tiroo soo diray intaba waan u duceynaynaa ilaahay waxaanu ka baryaynaa miisaanka aakhiro in ilaahay muslimiintaba waxaanu ka baryaynaa wax ka khayr badan oo ay ku farxaan ilaahay ugu bedelo sidaa la ajriga waan ugu bedelayaayo ugu bedelaya TV Somali Channel maxamed cismaan cabdinuur iyo shaqaalaha la shaqeeya intaba ilaahay waxaan uga rajaynayaa sidaas oo kale iyo si lamid ah caafimaad cimrigeed cadowgooda la jabiyo meel allaale meesha ka ciilayeen ilaahay ka ciiltiro dhinaca kalena xaaladda caafimaad ee cunug yar oo lagu magacaabo Kawsar Cabdi Cali oo 1 sano iyo badjir ah ayaa ah mid aad u liidata sidaad ku aragtaan muuqaalkana waa muuqaal naxdin ku abuuraya dhammaanba ummadda Soomaaliyeed ee iyadoo u diirnaxaysa dadka dhibaataysan iyadoo haatanna ay waalidiinteed noo sheegeen in ay geeyeen dhakhaatiir kala gadisan oo ku taala geeska Afrika isla markaasna ay u horeyso dalka Ethiopia oo iyadu markaasi lagu tiriyo goobaha ugu dhakhaatiir wanaagsan qaaradan Afrika ama geeska Afrika Kawsar Cabdi Cawil oo 1 sano iyo badjirta ayaa madaxeeda waxa buux dhaafiyay burooyin iyo biyo kuwaas oo ay sheegeen dhakhaatiirtu inaan gudaha dalkani Soomaaliya ama wadamada Afrika aan waxba lagaga qaban kareynin deeqa jaamac Ismaaciil ayaa hooyada dhashay ee ilmahan yar ayaa iyadu waxa ay dalbanaysaa dadka xasanaadka yaajarka jecel in ay soo caawiyaan cunugtan yar iyadoo cidii ka qayb qaadanaysa dib u helida caafimaadka ilmaha yarna ay la soo xiriiri karaan deeqa jaamac Ismaaciil oo ah hooyada dhashay isla markaasna wadata telefoonka shaashada ku qoran inta badan telefishinkan caalamiga Somali Channel ayaa isagu waxa uu isku hawlaa sidii uu wax ugu qaban lahaa ummadda muslimka iyo kuwa Soomaaliyeed ee u baahan gargaarka bini'aadamtinimo xanuunka waxa lagu arkay hadeer 6 bilood ka hor 5 bilood ka hor sanadii 5 bilood buu jiray markaas sanad soo jira xanuunka lagu arkay wiil baab soo gabay door weyn marka wax dhakhtar ah oo aad geyseen ma jiraan haa way jiraan هي maxaa marka dhakhtarada geyseen xageebay ka maxaa ka mid dalka dhakhtarka geyseen soo weyn ya artsaan weyn hay marka maxaa dhakhtarku ku yiri taqadirtu waxay tirtay bura ku jira iyo biyo waxa kama qaban karnaa waayay dadka dawadna dawo iska soo celinay qarashka intaas oo naga go'ay marka deynta safarka wadayada noqotay iska soo celinay waxaan isniraad iska ceshateen haddana hadii lahayd ma waxaan siri dawo ku caawin kara muslimkaas ku caawiyo maxamed cismaan cabdinuur telefishinka caalamiga Somali Channel xarunta gobolka Sool ee Laascaanood halka warkaas idinkaga imanaya waa London xarunta dhexe ee TV-ga caalamiga ee Somali Channel dhanka kalena madaxweyne ku xigeenka Somaliland iyo wafti ballaaran oo hogaaminaya ayaa gaaray magaalada Gabiley ee galbeedka Somaliland wakan wariye Cabdirasaaq Axmed Hayaan ilka case oo umurtaas la faguraya madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Somaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Saylici iyo wafdi ballaaran oo hogaaminaya ayaa soo gaaray magaalada Gabiley ee xarunta gobolka Gabiley waftiga ballaaran oo ay kamid ahaayeen wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Nuur Carhaale Duur wasiirka wasaaradda howlaha guud Ismaaciil Muumin Aari wasiirka wasaaradda kalluumaysiga Cabdilaahi Jaamac Ismaan Geeljire wasiirka boosaha iyo isgaarsiinta Axmed Xaashi Oday wasiirka wasaaradda ganacsiga Cabdirasaaq Xaliif Axmed wasiirka arrimaha qoyska Ilhaan Maxamed Jaamac gudoomiyaha xafiiska siyaasadda iyo xiriirka golayaasha madaxtooyada Bashiir Cabdi Xirsi agaasimaha xafiiska madaxtooyada Aamina Maxamed Deeriye la taliyaha siyaasadda madaxtooyada Abiib Deeriye Nuur agaasimaha siyaasadda ee madaxtooyada Maxamed Cilmi
taliyaha ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Saqadhi Dubad agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Cabdilaahi Xuseen Cige madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdilaahi Saylici waxa uu xadhiga ka jaray hal fasal oo dowladda hoose Gabiley ku kordhisay dugsiga hoose ee galbeedka magaalada Gabiley ee loo yaqaan Guudle waxa kale oo madaxweynuhu xadhiga ka jaray laba wado oo laga hirgeliyay bartamaha magaalada Gabiley waxa kale oo xadhiga ka jaray laba fasal oo lagu kordhiyay xarunta agoomaha ee Gabiley sidoo kale waxa uu xadhiga ka jaray hool weyn oo laga hirgeliyay dowladda hoose Gabiley gabagabada waxa madaxweynuhu dhagax dhigay dhismo cusub oo loogu talagalay in laga dhiso guriga martida ee Gabiley munaasabad balaaran oo loo sameeyay xadhig ka jarista hoolka weyn ee laga hirgeliyay dowladda hoose Gabiley munaasabadaasi xadhig ka jarista ayaa waxa hadal kooban ka soo jeediyay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Saylici waxaanu sheegay inay tahay wax aad loogu farxo waxqabadka muuqda ee dhammaan xadhiga laga jaray sidoo kale waxa ammaan u soo jeediyay maayirka degmada Gabiley Marwo Khadra Xaajigeer waxaana hadaladiisa ka mid ahaa Marwo Khadra Xaajigeer gudoomiyaha degmada Gabiley iyo xogeyaha dowladda hoose iyo golaha deegaanka ee sida fiican u shaqeeyay runtii waxay maanta u tahay saaxiibka sheegeen waa magac waxay faanka u tahay koowaad marwada Khadra Xaajigeer waxay faanka laba u tahay kuligii deegaanka ka tirsanayd oo saa walaalkaygii golaha deegaanka ee kooda deegaanka sheegay in khaatibada khayr maanta ay ugu macquuliso waxay xiso waxay faan u tahay dadweynaha reergeeda faan u tahay dowladda Soomaaliland maanta dalka hogaamiyaasha faan u tahay oo aan ku faraxsanahay in weliba fiican waxyada yihiin maanta muddo aan aaminsanahay marar badan oo waxa kale oo isaguna munaasabadaasi hadal kooban ka soo jeeday wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Nuur Caraale Duur waxaanu sheegay in nabadgelyada la ilaashado isla markaana la soo qabto ciddii geysatay falkii foosha xumaa ee Soomaal waxa kale oo isaguna munaasabadaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda howlaha guud Ismaaciil Muumin Aare oo sheegay inuu aad u soo dhaweeyay waxa qabadka bal ee maayirka Gabiley ku talaabsaday guud ahaan gobolka Gabiley waxa kale oo munaasabadaasi hadal kooban ka soo jeediyay wasiirka wasaaradda kalluumaysiga Cabdilaahi Jaamac Ismaan Geerjire ayaa soo dhaweeyay dhismaha guriga martida ee dowladda hoose Gabiley dhisayso isla markaana ay noqon doonaan dhismahaasi mid lagu xasuusan doono maayirka Gabiley waxa kale oo munaasabadaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda ganacsiga Cabdirasaaq Khaliif Axmed oo sheegay in maanta tahay maalin waxqabad ay ka mid tahay ballanqaadadii uu madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo uu ballanqaaday shacabkiisa soo doortay waxa kale oo isaguna munaasabadaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha qoyska Ilhaan Maxamed Jaamac oo sheegtay in reer Gabiley looga fadhiyo dilkii ka dhacay deegaanka Soomaali isla markaana dadweynaha ku dhaqan guud ahaan gobolka Gabiley ugu baaqay inay helaan oo ay sharciga hor keenaan dadkii geystay falka foosha xun waxa kale oo munaasabadaasi ka hadlay gudoomiyaha xafiiska siyaasadda iyo xidhiidhka golayaasha madaxtooyada Bashiir Cabdi Xirsi iyo agaasimaha xafiiska madaxtooyada Aamina Maxamuud Diiriye oo dhamaantood soo dhaweeyay waxqabadka muuqda ee maayir Khadra Xaajigeer ku talaabsatay waxa kale oo munaasabadaasi ka hadlay la taliyaha siyaasadda madaxtooyada Abiib Diiriye Nuur oo tacsi u diray qoyskii iyo qaraabadii ay ka baxeen dadkii lagu laayay deegaanka Soomaal waxa kale oo munaasabadaasi hadal kooban ka soo jeediyay barasaabka gobolka Gabiley Cali oo Aadan Macaad oo isaguna munaasabadaasi ka hadlay ayaa sheegay inuu soo dhaweeyay waxqabadka maayirka degmada Gabiley maayirka magaalada Gabiley Marwo Khadra Xaajigeer oo iyaduna faahfaahin ka bixisay waxyaabaha u qabsoomay iyo waxyaabaha kale ay ku tala jiraan inay qabato gabagabadii waxa halkaasi shahaado sharaf la guddoonsiiyay maayirka Gabiley Marwo Khadra Xaajigeer iyo xogeyaha dowladda hoose Gabiley Cabdiraxmaan Nuur Abakar waana markii ugu horeysay ee mashaariic noocan oo kale laga hirgeliyo magaalada Gabiley Axmed Hayaan Ilkaase telefishinka caalamiga Somali Channel Gabiley dhanka kalena isku duwaha xanaanada xoolaha ee gobolka Awdal iyo saraakiisha amniga ayaa sheegay inay soo qabteen ugaadh laga dhoofin jiray gobolka Awdal waa kan wariye Cabdi Fitaax Axmed oo nooga soo warramo gobolada Awdal iyo Salal oo umurtaas qaada dhigaya
isku-duwaha wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee gobolkan Awdal mudane Saleebaan Xasan Xadi ayaa maanta waxa uu ka warbixiyay howlgal ay wasaaraddiisa ka samaysay deegaana hoostaga degmada Baki ee gobolkan Awdal waxa uuna sheegay inay halkaasi ku soo qabteen dad ka ganacsanaya dhoofinta ugaadha kala duwan. Saleebaan Xasan Xadi waxa uu ka warbixiyay ugaadha ay soo qabteen iyo sida ay ka yeelayaan dadkii ka ganacsanaya ugaadhaasi. waxa imika saldhigga dhexe degmada Boorama ku xiran gawaari laakursala oo ay saaran yihiin gaariga halka laakursala lagu soo qaadayo yahay konton mid oo diina waa diinkii dhulkeena ku noolaa meel loo wada garanaysid runtii dad Soomaaliland kuma koobnaa waxa jira inuu faasitin garanayaan shilin marka la soo waxa weeyaan way ka hawlgalayaan laakiin cidda hawshan influencer ku ah waa dadka ajaanibka ee dibadda laga imanaya taasoo aan maalin dad ajaanib ah oo si sharci darro soo galay gobolka Awdal gaar ahaan degmada Luqaya aanu ciidanka nabadgelyada degmada Luqaya ka gacan galay inuu ka hawlgalay qoyskii baadinayaan ku dib joogay aanu jeednay inuu booliis la socdo booliiskaas oo runtii aanu marka dambe aan la yaabnay iyada oo laantii dowladda wasaaradii wax ku shaqo lahayd aan la soo wargelin maamulkii degmada halkaan la soo wargelin markii aan soo qabanayna si degdeg loo sii daayay oo aniga iyo maayarkii degmada Luqayaba ay layaab nagu noqotay in markii degdeg loo sii daayay. sidoo kale taliyaha qaybta booliska ee gobolkan Awdal ayaa isna waxa uu ka warbixiyay howlgal ay ciidamadiisa ku soo qabqabteen ugaadhaasi laga dhoofinayay deegaana hoostaga degmada Baki ee gobolkan Awdal waxa uuna hoosta ka xariiqay inay sharciga la beegsan doonaan dadkii lagu soo qabqabtay dhoofinta ugaadhaasi. marka waxaan doonayaa inaan fariin u diro dadka waxa ka shaqeeya inay faraha kala baxaan oo ay ka waanjoogaan oo ay faraha ka qaadaan waayo xaraan weeyaan lama ogola sharci uma ogola waa xawli khayraadkii dadka ka dhaxeeyay marka qofna si gaar ah kaliya uma isticmaali karo deegaanka kale lagu qabsan sida kuwan kale uma sharciga la horgoyn doona. gudoomiyaha degmada Lughaya ee gobolkan Awdal Saleebaan Cabdi Cabdilaahi ayaa isna waxa uu ka waramay sida ay ula dagaalamaan dadka ugaadha kala duwan sida sharci darrada ah ugu dhoofinaya xeebaha hoostaga degmadaasi Lughaya ee gobolkan Awdal. umada waxaan u faraynaa in arrimaha ugaarsiga ee ka jira dalka intiisa badan in ay xil iska saaro shaqooyinka ciidile faraha loo qaado laguna hawlgeliyo meel kasta oo joogaan. Cabdi Fataax Ahmed Somali Channel magaalada Boorama. taliyaha taraafikada gobolka Awdal ayaa maanta ka warbixiyay shil ba'an oo ka dhacay bartamaha caasimadda gobolka Awdal ee magaalada Boorama kaas oo ay dad ku leedeen. waa kan mar kale wariye Cabdi Fataax Ahmed Maxamed oo nooga soo warrama caasimadda gobolada Awdal iyo Salal oo umuurtan ka faalloonaya. bartamaha magaaladan Boorama ee xarunta gobolkan Awdal waxaa maanta ka dhacay shil baabuur oo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. hal qof oo haweeney ahayd ayaa ku dhimatay shilkan baabuur wuxuuna baabuurkan ka mid ahaa baabuurta ay ku shaqeeyaan ciidamada booliska ee gobolkan Awdal waxa uuna ka baxay wadadii loogu talagalay inuu ku socdo isagoo jiiray haweeneydan dhimashada ka soo gaartay shilkan oo ku ganacsanaysay agagaarka wadadaasi. taliyaha ciidamada taraafikada ee gobolkan Awdal Ahmed Daahir ayaa waxa uu Somali Channel ugu warbixiyay sida uu shilkan u dhacay. dadka dhintay waa gabar kale islaamadu la lixdan daadeeda aan ku qiyaasayno الله الحارس توحى الورجل حلو برخل لدكسي الورجل لما تقص النوعة كما رواية كما لما حاسلي أهو ضرورينا لما تقص بتشاد بمشي كل من لما تمري وعلى هذا يما قمر مربع نيرا النوع نص منك النوعة النوع فلوس من ذلك يقعد الخير جارين صلصة الوجود قط يا سلام رسوا بالله ودولكوا واعي تو بلان عصب أنا runtii anigu markaan traffic ahaan eego loo baahay waayo caalamku waxa leeyahay meel marshabiyeedo qofta marshabiyeedo baa loo jiray meel loogu tala galay inay bini'aadamku maraan iyo wadadii laamiga oo ballaaran gaadiidku maraan guriyuhuna ay ka sii dambeeyaan halka dadku inay maraan loogu tala galay kullay town banaankii hore xumaaday waxaan filaynaa in la hagaajin doono wixii dambe ee magaalooyinka
dhanka kale 123 arday oo ka baxay dugsiga farsamada gacanta ee Ayodha ee gudaha magaaladan Boorama ku yaala ayaa maanta waxa xaflad qalin jabin ahayd loogu sameeyay hotelka Rays ee magaaladan Boorama munaasabadan waxa ka soo qayb galay culumaadiin waxgarad aqoon-yahano siyaasiyiin saraakiisha laamaha kala duwan ee dawladda ee gobolka Awdal iyo marti sharaf aad u farabadneed waxa madashan ugu horeyn ka hadlay xogayaha fulinta ururka wadaniga ee Ayodha mudane Siyaad Cumar Ali waxa uu ka sheekeeyay xaaladihii kala duwanaa ee dhanka waxbarashada ee ardaydan maanta qalin jabisay soo mareen waqtigii reconciliation-ka ama waqtigii dib u soo noqoshada qadan Soomaaliland waqtigii reconciliation-ka nabadeynta waqtigii kale socodsiinta dastuurka hirgelinta dimuqraadiyadda يعني الناس هذا ما هيك تذكرين أول السودان قيمة صحيح لو تاجتها قيمة هنا وين هلا يا بالكودي أمرنا بكها ما قدرنا كولجا عندنا لغة السودان وهذه هذا يعني قيمة يقول أنا هيك تذكر السودان أي نسير إن أنا بكها وحاشي بالدوار إن ما دام وانا هي يعني تذكر السودان قيمة هذا لا يوصل كل هنا قيمة خوشنو وانا كينو وانا خبرك هي الديمقراطية هي نبضت سلوا وشقينو تذكر هذا يبوق وباحنا كالي ودك ما قشرة سياسة جعله كالي ويستشرع فضل واحد يقع صلينا أنا واحد حتى هكذا شغلنا أنت ما كان صنعوا مشقين بهويت بشدنا أنا وربك أنت على وجالسيني كلا نقال كيف قاعد يسكت هذا كيف وقع فضلا فرضنا قرب الشغل كلا قولنا كلا كوبر يسمى سمايستا وحسوس ودرسنا سيبنا يتعاملوا هالشغل وحن عادي أدوش على هنا فصل كفاية الصلاة قالوا ببيو مدرنا قرأت شبورة السوالان وضل أحمد محمد حموس سجايو يما دخلنا كوهنكا وضل عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيدي وكو أمان يسد ولا يسد وذاك هنيان بالجها يهوجانك يهملنا يهرمك فورنك sidoo kale maamulaha dugsiga farsamada gacanta ee Ayodha ee magaaladan Boorama ayaa isna waxa uu faaqiday waxyaabaha dugsigooda lagu barto iyo ardaydan maanta qalin jabinaysa waxyaabaha ay barteen maanta sanadada 2010 sanadka ay joogno waxa ka qalin jabinaya waxaa ka qalin jabinaya 123 arday oo isugu jira 66 arday oo wiilal iyo 750 arday oo gabdho ah waxaan aad ugu kalsoonahay final examination imtixaankii natiijada shahaadiga ahaa ee laga qaaday wax ka qaaday wasaaradda waxbarashada imtixaan shahaadi ahaa oo loo galo sida imtixaanada dugsiyada hoose dhexe iyo dugsiyada sare loo galo wasaaradda waxbarashada ama xafiiska imtixaanaadka ayaa ka qaaday imtixaanka dhammaantood shuruudihii loo baahnaa way buuxiyeen ardaydaasi wax arday oo ka dhacayna ma jiro 123 Cabdi Fattah Ahmed Somali Channel magaalada Boorama dhanka kalena qaar ka mid ah jaaliyada Kuwait ee Soomaalida ayaa deeq lacag gaarsiiyay goobta laga dhisay garoonka magaalada Buuhoodle ee gobolka Cayn Ali Cismaan Yusuf Ali Dhagtar oo alaabo nooga soo waramo caasimada gobolka Cayn ee magaalada Buuhoodle ayaa umurtan qaada dhigaya jaaliyada ku dhaqan wadankaasi Kuwait ee ka soo jeeda gobolada Sool Sanaag iyo Cayn gaar ahaan gobolka Cayn ayaa deeq lacageed soo gaarsiiyay dhismaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Buuhoodle deeqdaas oo lacageed oo in muddo ay gacanta ku haysay oo Caashe Cabdi Xiiray oo hawada dhashay ra'iisul wasaarihii hore wadanka Soomaaliya Professor Ali Khaliif Galeer ayaa maanta lacagtaasi waxay ku wareejisay gudoomiyaha jaaliyada SSC ee UK Cabdilaahi Daarood iyo waliba mas'uuliyiin kale waxa ugu horeyn halkaasi ka hadlay Cabdilaahi Daarood oo sheegay inuu aad ugu mahadcelinayo hooyadan maanta lacagtan ku wareejisay in muddo weysay airportka Buuhoodle sidoo kale halka waxa ka hadlay Cawle Shire oo kamid ah xubnaha guddiga qabanqaabada shirka Khaatumo oo isna u mahadceliyay hooyo Caashe Cabdi Xiiray oo sheegay in lacagtan maanta ay ku wareejisay iyadoo lacagtaasi in muddo gacanta ku haysay aad in soo dirteen reer Kuwaydow waan anoo idin salaamayo ku mahadsantihiin waxay noqotay 3,074 waxaan u dhiibay Cabdilaahi Daarood iyo rag madaxa oo kamid ah iyo howlwadeenadii airportka oo aanu markii hore isku qabanay wax yar oo hadal ah haddana aanu heshiinay waxaan idin leeyahay imanka waxaanu ku heshiinay lacagtii baaniga maanta bixiyay iyagii aanu airportka wada sameynayna aanu kala xanaaqnayna saamax bay iga yihiin iyaga ay soo galay anigu airportna ma hadalhay nimankii aanu isqabanayna waa ku saamaxay sida kuwan ii yimid ee soo ciseeyay ii yimid shirka ii qabtayna
sharafkooda iyo aakhiradooda iyo adduunkoodaba allaha nuuro ilaahay baan baryaa soomaaliya oo dhan walaalo isjecel eegma daacada carab macaan calool saafiya allah isugu dhiibo cadow alla inooma kado ku hayaa 3,074 doolar baan ku hayaa 3,000 doolar waa jahliyada sidii horada loo sheegay waxaa soo diray jahliyada Kuwait sidaas aan professorka ugu dhiibaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. lacagta maanta gacantaan ku qabanay waxa weeye 3,074 doolar. lacagtaasina waxa gacanta laga soo gelisay Caasha Cabdi Xiirey oo ah hooyo Soomaaliyeed waa hooyadii Professor Cali Khaliif waa hooyadii Buuhoode waa hooyo aad iyo aad ugu dadaashay sidii aad maqlaysay khudbadeedaba waa hooyo aan la ilaawi karin waa hooyo sharafteeda iyo qiimaheeda intaba leh waa hooyo aan aad iyo aad ugu mahadnaqayno weeyi lacagtaasina waxay iyada ka soo gaadhay dalka la yidhaha Kuwait waxaana ay ku dadaashay jaaliyadda Kuwait inay lacagtaa ka qabato si madaarka wax loogu qabto madaarkaasi oo maanta taagan shaqo fara badan laga qabtay intaana kaanu joognay oo haddii ay timaado rigladu ama rulerku mashiinka weyn oo 15 tala oo laga soo raray qadar oo imkana dhexda ku soo jira ayuu hadhay uun biyihii iyo iyada oo adkaysa intaa dabadeedna diyaarado ay ku soo degi karaan cabdi aad baan ugu hambalyeeyaa sida sharafta leh xaajadu loo qaabishay ee ah inaan goobjoog ka noqono sida lagu wareejiyay lacagta qolada airportkana aan waxba kale ka sheegi maayo dawatan hore aan u tagnay imikana professorka aad sheegay hadda waxaan ku wareejinaynaa xasan faarax baad odayaasha airportka kamid ah gudoomiyaha airportka gacanta ku haya oo lacagtana saan rajeynaya professor ku wareejin doono fadal xasan بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عاشا عبد حيري وأنا وايددي آدي آد بي مهدسنتهي اسمنا قبن ولني ويلي ددي اسم قبن كران اسمنا قبن وددك بان يدا نقول جعلهاي دينا والبا وحبان كوداغنا هدينا عفيني أنا وعفيني isku aragti maanu noqonaynaa awal la ahayn haddana nahay waxay u baahan tahayna waa u qabanaynaa waxaanu u baahannahayna waa weydiisanaynaa annagoo hubnaynayna siin doonta waxaanu u baahannahay yaan loo arkin wiil iyo eedadeed oo isqabtay yaan loo arkin oo halkaa ceeb baad dee ku jirta laba qof oo isu eedaa oo isqabtay waa ceebta ninka kalena aan wada shaqeynaa waaba ilmaabti ismana qaban doono haddii ilaahay idamka ka dhigo anigoo xasan faarax baad gudoomiyaha airportka waan ka guddoonnay lacagta ay Caasha haysay jaaliyaduna waa ku mahadsan tahay professorkuna waa ku mahadsan ugu dambeyntiina Caasha Cabdi Xiirey waxay ka mid ahayd dadkii aasaasay airportka Buuhoodle iyadoo imikana sheegtay in khilaaf soo kala dhex galay oo meesha uu ka baxay iyaduna ay ka madax banaan tahay airportka Buuhoodle Ali Cismaan Yusuf Cali Dhagjar telefishinka caalamiga ee Somali Channel magaalada Buuhoodle xarun goboleedka Cayn dhakhaatiir Soomaaliyeed ayaa muddo 2 cisho ah ka waday baaritaano lacag la'aan iyo dawooyin ay u fidinayaan dadka Soomaalida iyagu ku dhaqan xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay la yidhaha Islii ee ku taal caasimadda waddanka Kenya ee magaalada Nairobi waa kan wariye Ibrahim Mahmoud Jamac oo umurtaas ka faalloonaya jamciyadda dhakhaatiirta magaalada Nairobi ayaa si tabarucada muddo 4 casho daawo iyo baaris lacag la'aan siiyay dadka danyarta ee ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi tabarucadan caafimaadka ayaa waxaa ka faa'iideystay dad gaaraya ilaa 800 oo ruux dadka Soomaaliyeed ee ku nool caasimadda Nairobi ayaa u badan dad aan haysan lacag ay u isticmaalaan adeeg caafimaad ay u baahan yihiin fursadan ayaa ah tii saddexaad ee dhakhaatiirtani si lacag la'aan ah ku gaarsiiyaan dadka qaxoontiga ee ku nool magaalada Nairobi waxaa ka qayb qaadanayay dhakhaatiir fara badan iyadoo dadka marka la baariyo la siinayay dawooyin ay u baahan yihiin isla markaana loo sheegayay xanuunada markaasi haya Dr. Cabdiqaadir ayaa ka warbixiyay barnaamijkan sida uu faa'iido ugu leeyahay dadka Soomaaliyeed iyo sababihii ku dhaliyay in ay si tabarucada ugu shaqeeyaan dadka iyagu
qaba baahida caafimaad ama xanuunsan ee ku nool magaalada Nairobi. waxaan go'aansanay inaan tabarucaad ku sameyno aqoonteena iyo xooggeena. waxa ugu weyn oo aan qabanayno wuxuu ahaa dadkii inaan visiteeno, dadkii u sharaxno xanuunkooda, wacyigelin dadkii inaan u sameyno si ay u fahmaan xanuunka haya. isla markaasna wixii awooda markaas daaweyn aan helnaa inaan siino, qofkii awoodana markaa inuu soo gato daawadiisa. intaaba waa wax dhan oo maaragtay faa'iido ah. takhaatiirta ka qayb gashay way badnaayeen, narska way badnaayeen, shaybaaristayaal badan ay jooga iyaguna. marka mahaddaas ilaahay baa leh. waxaan u mahadcelinayaa mar labaad xubnaha ka kooban yahay Soma Kenya iyo mas-uuliyiinta maamulaya masaajidkan Al-Hidaaya oo ayaguna chance inoo siiyey, qaybta dabaqa korena siiyey oo aan dadkeena ku biisteenin waxna ugu qabanin. labadii toddobaad la soo dhaafay wixii aan fiirinay saas uma ay badneen haddii si loo eego. dumarka waxaan fiirinay ilaa ay hadda 156 dumara iyo 87 raga. waxay u badnaayeen dad waaweyn, dumarkii raguba. tallaabadana waa mid bilow ah, hadduu ilaahay yiraahdo waa wadi doonaa intii karaamadeenna. dhanka kale dhakhaatiirtan ayaa ka jawaabay baa ka soo yeerayay dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool xeryaha Dadaab, taasoo xaalada ammaan darro darteed ay isaga baxeen dhakhaatiirtii halkaasi ka howlgali jirtay. taas oo ay dhakhaatiirtani sheegeen in ay mashruucoodan gaarsiin doonaan xeryahaasi si ay uga qayb qaataan gurmadka caafimaad ee ay u baahan yihiin dadka ku nool xeryaha Dadaab. annagu horta inta hore waxaan ku mashquulsaneen dadkan la yiraahdo urban refugeeska oo ah qaxootiga degan magaalooyinka, gaar ahaan qaxootiga degan Islii. sidaa idin sheegayna aan u arkeen inay yihiin dad aad u dhiban. sababtu waxa weeyaan waxaan ku fikiraynay dadka xeryaha degan inay haystaan maaragtay gargaarka UNHCR ta UNT, laakiin dadkan magaalooyinka degan cid u xil qabtaa ma jirto. hadda ka horna waxaan u sameynay dhowr jeer CME free medical camps. haddana maalmahan labada toddobaad u dambeysay waan u sameynay. marka annagu maskaxdeena horta intii hore wixii ku jiray waxay ahaayeen dadkan aad u dhiban oo wax badanna markii hore ka hooseeyey xaaladooda markii la eego dadka ku jira xeryaha. laakiin haddii hadda ay soo baxday in takhaatiirtii joogtay ajnabiga ahaa oo xeryaha qaxootiga ka shaqaynayay nabadgelyo darro awgeed inay ka soo baxeen, warkaas uuna soo gaaray. waa ka wada hadalnay annaga nafteenna. waxaan u aragnay inay tahay xil cusub oo iyadana soo fuulay. inkastoo annaga xataa aan waxba ka duwanayn dadkii qaxootiga aan la mid nahay, annagiiba qaxooti aan nahay, takhaatiir qaxooti ah. waa dadka ayaga walaalaha annaga. marka hiili hooba mataqaanaa aan garab siino oo mataqaanaa garab qabanno oo mataqaanaa nafta anagu horno oo dadka aan maartay aanu wixii tabarta annaga oo daawo oo xagga caafimaad inaan aad iyo aad ugu caawino aad baan u jecelnahay. waa arrin horta waxa weeye waan aad baan ugu shaqeynaa oo waxa weeye sidoo dhakhtarka ka dhawaajiyaba medical camyada oo freega ayaan qabanaa oo bishiiba ama waqti ka soo wareego oo aan u qabanaa. marka waxa weeye si fiican ayaan ugu shaqeynaa dadka. fursadahan ayaa ah kuwo si weyn ay ugu baahan yihiin ummadda Soomaaliyeed oo u badan dad iyagu qaxooti ku ah wadamo badan oo dibadda ah, kuwaasoo intooda badan ay u baahan yihiin qof kasta in uu gacan ka geysto dhibaatooyinka soo wajaha bulshada Soomaaliyeed. Ibrahim Maxamuud Jaamac, Somali Channel, Nairobi. hadduu eebba idmana tan iyo intaynu dib ugu kulmi doonno warkan iyo mid lamid ah oo uu soo jeedinayay anigoo Cabdilaahi Xuseen Mariya, waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.